المصطفى أما بعد ولا ليال نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أصد دري بشر كبني آدم كإنه هجاجيو وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كيري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي صلى الله عليه وسلم وحايدن كوسوغان قديشة وناكسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قفك إلهي رجينا إيمان قيام خير رجينا يا وحياوها النبي صلى الله عليه وسلم أقضينا أنا أمانتك هلنا وحيت هاي تربية الأولاد أولاد سيدين وتربينا والدين تقار إلهي سبحانه وتعالى وتسيي تربية وناكسن قوة قارنا وحيو باهين الله الشيغو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو كير يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أهل كينا إن ففتينا بوحاكبت بادسان نار تاسو لغو شدا دد إيا دقحان ملائك أيا إوارديين إيسا علي بن أبي طالب أساقو آيات دان فسرها وحيري نفتيني أهل كينا بوحابرتان خير marka maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah ta'ala dhowr asaaliib oo nabi sallallahu alayhi wasallam caruurta uu ku tarbiyeeyay ama asaga uu sheegay ama uu sameeyay ama uu tilmaamay waxa ugu horeysa al-qudwatul hasana aabaha ama hooyada waxa laga rabaa inay ahaadaan qudayasho wanaagsan maxaa yeelay ilmahan yar yar oo guriga joogan waxbay duubayaan hooyadii aabaha waxay sameynayaan way arkayaan hadii adiga xumaan aad sameynaysid ilmahaaga waxbaha ku daalin inay wanaag ku sameynayaan ka sugin sababtoo ah adiga ku fiirinayaan xilliga salaada hadii aad ku dheelaysid canugaaga adigu ku fiirina hadii xilliga salaada hooyada ee dul fadhida dhalada canuga waa soo ag fariisana saas awgeeda ilmaha yarka waa la arkay guryaha jooga wiilka wuxuu jecel yahay inuu iska dhigo sida aabiis oo kale aabiis markuu khamiis qaadsayn wuxuu jecel yahay khamiis inuu xirto gabadha yar markii hooyada salaad ay xirato ayadana xijaabay soo xiranaysaa hooyada ag istaagaysaa saas oo kale marka waxa loo baahan in loo ahaado qudwa xasana ilmaha in lagu tarbiyeeyo wadada wanaagsan waxyaabaha nabi sallallahu alayhi wasallam aan ugu dayanayna waxay tahay in loo fiirsado waqtiyo waxa jira gaar ah oo ilmaha wax lagu bari karo waxa kamid ah su'aalahan markaas soo kaxeynaysid oo kale oo magaalada aad soo kaxeynaysid wadooyinka markaas soo maraysiin waxyaabo fara badan oo sheegi karta oo aadaabta wadada kamid ah raashinka marka la cunaayo ilmaha waa la tarbiyeena waxa la leeyahay gacanta midig ku qabo wuu yaryahay asaga markii yaraantan wanaaga ku soo tarbiyeysid oo ku soo weynaado wanaaga uu noqonaysaa asaga ilmaha hadii la arko gacanta bidix wax ku haysto gacanta midig ku qabadhe gacanta bidix wax ku cunaayo midig ku cundhe hadaa arita ilma yaro raashin la soo dhigay oo ku falaaday ninba meesha wax ku cunaayo waxa dhahdaa qof walbo meesha asaga soo xigta waxa ka cuno bismillaahina dhaha maxay nabi sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas oo yar ayuu wuxuu ku yiri waxbaan ku barayaa ya xifdi ibn Abbas kalimaadkan markuu weynaaday xitaa ma iloobin oo ahayd ilaahay ilaali asna wuu ku ilaalinayaa hadii wax weydiinaysid bani aadam waxa weydiinina ilaahay weydiiso bani aadam hadii iskugu tagaan wax ku taraan waxba kuma tari karaan illa ilaahay wuxuu ku qoray mooyee dadka qaar ah hunguri ka soo dhacay meel kasta aaday wixii ilaahay u qadar kaliya helayaan bani aadam hadii iskugu tagaan inay ku dhibaan ama ku dhibi karaan illa ilaahay wuxuu ku qadaray mooyee ibn Abbas waxa baray hadaladaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam asaliibta lagu tarbiyeynaa caruurta waxa kamid ah al-adlu bayna al-atfal caruurta in loo cadaalad falo oo la simo oo waxa la diidan yahay caruurta inaad kala jeclaato wax siismada xageeda dhinac walba Nu'man ibn Bashir ayaa wuxuu leeyahay aabahayga ayaa isoo kaxeeyay wuxuu ikeen nabi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri nabi Allah wiilkayga Nu'man hantida aniga aan leeyahay intaas baan ka siiyay adigina marqaati ka noqo markaas wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wiilashaadi oo dhan maalka Nu'man aasiisi oo kale ma siisay markaas wuxuu yiri maya waxba ma siinina aan Nu'man aan jeclahay Nu'man si gaar intaas aan ugu talagalay inaan siiyo markaas wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadaba aniga marqaati hayga dhigin arimahaas waa cadaalad daro markaas wuxuu weydiiyay adigu ma jeceshahay in caruurtaada dhamaantoodii ee baari ku noqdaan oo hal nooc ee baari ku wada noqdaan ها وان جعلها ويري هذا جعشها ويري عدالة السن مرك المها مركب حسين يسين هلا وضع سيمولا ليال يعني كلا جعله السنين هذه كل آدم وهلي كرين وحبها السنين هذه كلا عقدت با أبور ما يسميشاس
asaaliibta kale ka mid ah tarbiyada awlaadda waxay tahay ilmaha in la dareensiiyo inay xuquuq leeyihiin. wuxuu leeyahay Sahl ibn Sa'd saxaabiga jaliilka ah, aniga iyo odayaal waxaan joognay nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisii aan fadhinay. aniga wuxuu yiri markii meeshii aan joognay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa dhinaciisa waxaa fadhiyay canug yar oo midig, dhanka bidixna waxaa fadhiyaan odayaal waaweyn asaga ka waaweyn oo waliba akhyaara ah. markaas waxaa la keenay caano la cabayo oo dadka fadhiya loo keenay. markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u jeestay wiilka yar, markaas wuxuu ku yiri ata'danu li an u'tiya al-ashyaakh, canugiihow ma ii fasaxaysaa odayaasha inta fadhi inaan siiyo maadaama asaga xaq u leeyahay in la siiyo. nabiga sallallahu alayhi wasallam uu weydiinaa fasaxu ka qaadana wuxuu leeyahay anaga waxaan leenahay war waxaan ilmo waaye xaq hala geeyo, ilmo waaye gadaal hal fadhiisiyo ma aha. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wiilkeygiiyow odayaasha inaan ka hormariyo raali ma ka tahay. markaas wuxuu yiri canugii rasuul allah aniga wuxuu yiri qof aan adiga ahayn miga hormarayso, hadiiba adi aadan ahayn caanahayga sii waa cabaa u yiri. nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilkii siiyay wiilkana waa cabi. ilmaha marka waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u talagalay inuu dareensiyo ninkan nin weyn inuu yahay. markaas kadib qofku wuxuu dareemayaa inuu nin weyn yahay. marka ciyaalka yaal gadaal loo riixin. asaaliibta nabiga sallallahu alayhi wasallam oo awlaadda ku tarbiyay waxa kamid ah in loo duceeyo carruurta, loo duceeyo. ibn Abbas wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inta qabtay ayaa laabtiisa igeliyay, markaas wuxuu yiri allahumma allimhu alkitab, ilaahu canuga yar kitaabka quraanka bar iyo tafsiirkiisa bar. ducadaasi ilaahay waa u aqbalay. ibn Abbas wuxuu noqday ummadul muhammadiyya caalimkeedii noqday. riwaayad kale muslim wuxuu leeyahay allahumma faqihu fi diin, ilaahu ibn Abbas diinta fahamsi. marka carruurta in loo duceeyaa la rabaa. aadu ku yimaado aabo imtixaanaad soo dhow ku dhaho allah ku fududeeyo dheh. waalidiinta qaar inkaara ka soo horeys haddii carruurta ay dhibaan way inkaarayaan. inkaarta waxaa ugu fiican inaad garaacdo, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ku soo aado xilli samada uu furan yahay ducada la aqbalayo. saas allah ku yeelaa tiri canugaaga hadduu waxaas ku inkaarto uu ku dhaco dhibka adlu ku yeelaa ogow. inkaarta afka hal iska ilaaliyo. tarbiyatul awlaad waxaa ka mid ah ilmaha in loo soo gado hadiyo iyo waxay ku ciyaaraan. mina canuga sida militariga camal in la tababaro ma aha oo la juujuubo dugsi waxbarasho oo neefta lagu xiro oo waxba jaanis aan la siinin diinta ma qabto. waa in loo soo gadaa alaab uu ku ciyaaray xilliyada waqtiyada oo jaanis u haysto. qodob walba aan sheegaynana waxaan raacsiinayna daliilkeeda insha Allah ta'ala. nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha waxay leedahay Aisha nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku guursaday da'yaraan ku guursaday. da'yaraan waxaa dhici jirtay nabi sallallahu alayhi wasallam guriga uu soo hooyday ama uu soo hergal tagay Aishana ee la ciyaaraysa gabdha yar yar oo guriga kula jiraan. nabi sallallahu alayhi wasallam inta ul soo qaata gabdhaha ma ciyarin jirin, ciyaartooda u dhaafi jiray guriga ka gali jiray. markaas waxay tiri Aisha anigoo nabi sallallahu alayhi wasallam gurigiisa jooga xaaskiisa ah oo yar ayaa gabdhaha ii imaan jireen, waxaan ku ciyaari jirnay bombalooyin oo yar ah oo sida gabar camal loo sameeyay aan ku ciyaari jirnay. markaas waxay tiri markiisa asxaabteeda ay arkaan nabi sallallahu alayhi wasallam soo galaayo way kala carari jireen. markay kala cararaan nabi sallallahu alayhi wasallam intuu bombalka soo qaado ayuu aniga soo tuur jiray wuxuu dhahay hoo aadna ku ciyaar. carruurta markii in la ciyaarsiiy waay meesha waxa ka qaadanaysaa nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha da'deedu ku qiyaasaya maxay 6 jir ku guursaday 9 sano markay jirtana waa loo soo aqal geeyay. xadiiskaas waxa warinaya muslim waa saxiix. asaaliibta lagu tarbiyeenayo awlaadda waxa ka mid ah ilmaha in laga yareeyo canaanka iyo cayda. wax ma tara tahay waxa tahay male wax ma fahmaysid 20 jeer wax lagu sheegaa hebel ka fiican hebel wax loo sheego dhaqsiyo keena. canugaas daa liido goormo aqli yeelana. canuga xitaa hadduu wax khaldan sameeyo waa fiican tahay allah waxira ka dhiman dhameystir. khalad uu ka galay khaladkiisa u sheegin. ugu horeen waxaad ka bilowdaa waxyaabaha uu ku fiican yahay. waalidiinta inay ka faa'iideystaan loo baahan yahay asaaliibta nabi sallallahu alayhi wasallam wax ku tarbiyeen jiray. canuga soo qabo ugu horeen waxaad dhahdaa dugsiga waa aadaa waa fiican tahay, hooyada u adeegtaa waa fiican tahay, waxa ka dhiman kaliya habeenkii dhaqsi seexo bis. inta fiican marka uu dhageysto wuxuu is leeyahay aabaha uu ku amaanaye hal qodob le ka dhimane ku dhameystir. laakiin haddii canuga wanaagiisa aadan u sheeginba oo 24 saac canaan la also taagan tahay canugaas wanaagka ka sugin. Anas ibn Malik wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam waxaan u adeegay 10 sano waxaan ku noolaa gurigiis asoo yar la keenay. wuxuu yiri weligiis waxaanan sameeynin
maxaa u samayn weysay oo cannaan ma ila soo istaagin waxaan samayn waayna maxaa u samayn weysay ma dhihin waxyaabaha awlaad lagu tarbiyay waxaa ka mid ah in ciyaalka lagula hadlo caqligooda intuu la egyahay oo hadallo waaweyn aysan fahmi karin lagula hadlaynin markaas wuxuu leeyahay Anas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ahsanu nnaasi khuluqa ummadan midka ugu dabeecada wanaagsan gurigeenu iimaan jiray uu yiri walaalkeyga yaraa maalin wuxuu yiri waxa ka dhimatay shimbir yar oo asaga lahaa oo ku dheeli jiray shimbirtii ka dhimatay naybku gurigii maada wuxuu dhihi jiray aba Umayr aabihiisiyo firi anug yar waay magac wuxuu u bixiyay oo weyn markaas wuxuu yiri ma facala nughayr shimbirtii yarantay ka baxday ii sheeg bal dhihi jiray aqligiisa in la eg ayuu kula hadlaayay asaaliibta nabiga sallallahu alayhi wasallam awlaadu ku tarbiyay waxa ka mid ah ilmaha in lala saaxibo oo loo raaco meelaha ay rabaan waqtiyada jaaniska ah leedahay inaad raacdo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka xeesan jiray ibn Abbas oo yar Anas oo yar Jaafar ibn Abi Talib ilmihiis oo yar intuu isku soo ururiyo ayuu magaalada geen jiray oo wadooyin ku soo wareejin jiray asagoo baraayo waalidiinta xilligaas joogan in ilmaha la saaxibayo asaaliibta kamid ah in awlaad lagu tarbiyay waxa kamid ah oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay in ilmaha laga farxiyo idkhaalu sururi alayhim Anas ibn Malik wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ciyaarsiin jiray Salama gabadheeda oo asaga markii dambe Salama nabiga guursaday ayadoo caruur leh markaas wuxuu dhihi jiray ya Zaynab yaray waa ciyaarsiin jiray sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waxa kamid ah ilmaha in la tartansiiyo oo abaalmarino iyo hadiyo lagu tartansiiyo oo la yiraahdo 10ka dugsiga maanta qofkii dhaqsi ka soo baxa oo dhaqsi quraac loo soo daaya intaas ugu leeyahay imtixaanka iskoolka ninkii intaas keena intaas ugu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameyn jiray Abdullah ibn Harith ayaa warinaa wuxuu leeyahay Abdullah ibn Abbas iyo Ubaydillah iyo in far badan oo in Abbas wiilish Abbas uu dhalay inta soo wado ayuu saf gelin jiray wuu safi jiray markuu safo wuxuu dhihi jiray orod ha lagu tartamo qofkii aniga ii soo hormar dhaqsi ii yimaada intaas abaalmarin uu leeyahay inta halkaas safo inta ka soo istaagi jiray markaas ilmihi inta soo cararaan xaqiisa iimaanayeen mid wuxuu ku soo dhacay dhabarkiisa mid wuxuu ku soo dhacay xabadkiisa nabi sallallahu alayhi wasallam kulligood uu isku qaban jiray wuxuu dhihi jiray ninkaana guuleystay ninkaana abaalmarinta iska leh idinkana bari isoo diyaariya ayuu dhihi jiray wuu tartansii jiray ilmaha nabi sallallahu alayhi wasallam asaaliibta lagu tarbiyay caruurta waxa ka mid ah almadhu wathana caruurta in la amaano waa fiican tahay hore u soc la yiraahdo nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu xadiis laga warinay Nufay ibn Harith wuxuu yiri nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam oo minbarka fadhiya oo khudbada taagan jeedinaya Xasan ayaa la jiray wiilkiisa Xasan oo gabadhiisa dhashay oo isaga awoowaha u ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam caruurta aad u jeclaan jiray caruurta jecelkooda in la isbaraa loo baahan yahay waalidiin qaar aad bay u adag yihiin xitaa caruurta markii guriga ay soo galaan ay ku soo cararaan way iska riixaan oo way iska fardhiyaan niga leexday leeyihiin ma aha nabi sallallahu alayhi wasallam asoo minbar saaran khudbad jeedinayo ayuu wuxuu arkay Xasan iyo Xuseen oo khamiis loo soo geliyay oo gudguduudan oo khudbada soo aaday way yaraayeen masaajidkay soo galeen dadkii way buuxeen way soo soconayaan way dhacayeen khamiiska ugu jira tafaay meeshina waa ciriiri nabi sallallahu alayhi wasallam khudbada inta joojiyay minbarka ka degay caruurtiisu u tagay wuu soo kaxeystay minbarka ku soo laabtay markaas wuxuu yiri ha ila yaabina ani wuxuu kuwan waan jeclahay aadan u jeclahay Xasan ayuu wuxuu yiri intuu Xasan qabtay ibn Ali ayuu dhunkaday dhowr jeer dhunkaday minbarka saaran markaas wuxuu yiri inna ibni hada sayyidun wiilkaygan kana u jeedin waa madax u yiri anug yar waay وأمانة مركز وحوليه ولعل الله أن يصلح به ما بين فئتين من المسلمين عظيمتين وحالجيا وبيل كيجان مدحواي لبق قبيل أم لبق كوح مسلمين تكملت إزدقال الدونتو إنه كله الشيسية لجيا وا سيدو كل أساليب تكملت عرورت لقو تربينا يو ملاعبة الأطفال والتواضع لهم عرورت إلى عيار سيو تواضع الله سمايو لسكو جلعيو النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحوليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم حسين وير وعلي طلي انت soo qabto ayuu wuxuu soo bixinay carabkiisa markuu carabka soo bixiyo canugii wuxuu arkaa wax guduudan inuu qabto maaga carabku ka celinaa hadana canugi sidoo ku ciyaarsiinay sallallahu alayhi wasallam carruurta in la ciyaarsiyo loo baahan yahay oo garabka loo jilciyo
asaaliibta nabi sallallahu alayhi wasallam uu tarbiyeyn jiray carruurta waxaa ka mid ah in magac fiican lagu yeero magac fiican oo qurux badan marka hore magac fiican loo bixiyo kadibna magaciisa si qurux badan loogu yeero oo magac khaldan aan loogu yeerin nabi sallallahu alayhi wasallam waa soo marnay Anas ibn Malik walaalkiisu wuxuu ugu wacaayay Aba Umayr magac qurux badan oo ugu wacaayay asaaliibta waxaa kaloo ka mid ah al-mumaarasatu al-ficliyya ilmaha in la tusiyo wax ficil ah wax ay sameyn waayeen oo kale hadaa aragto ha ku qaylinina waxa leedahay keen ana sameeynayo adiga tusi practical u tusi ha sameeyaano nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay wiil yar oo neef ariga ka maqaar siibaayo maqaar siibidkiya markay si khaldan ugu siibaayo markaas wuxuu yiri u kaad inaa ku tusinaayo nabi sallallahu alayhi wasallam gacmihiisu la galay arigii wuu tusiyay sida maqaarka loogu bixiyo ariga sallallahu alayka ya habib allah wa min asalib an-nabi waxa kamid ah in ilmaha aadaab la baro aadaab quruxsan la baro qofka ka weyn soo ixtiraami laha la baro raashinka meeshuu ka bilaabi laha bismillaahir rahmaanir rahiim in la baro sidoo kale waxa kamid ah ilmaha in la taadiibiyo aadaab loo yeelo oo la cabsi giliyo cabsi gilintuna waxa la diidan yahay sida markii adiga oo dad qaar waxa jiro guriga markay soo galaan oo laga cabsado oo xitaa islaanta ka cabsato aan hadleeninba guriga dhan shib noqonayo shanqar yar xitaa aan ka yeereenin carruur waxa laga yaabaa 6-7 inay joogto mid sariirta hoos gala mid seexda mid masquul isku naba maxaa dhacay adooga yimid uu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninkaas noocaas looga cabsanayo oo fitnadiisa laga cabsanayo ahlu naar waa in aliif aad tahay qofka muuminka waa inuu aliif ahada loo soo ordi karaa loo imaan karaa aabbaad tahay guriga soo gashay aadaabta marka waxa kamid ah ilmaha garaacitaankooda in laga yareeyo hadalkaaga kaliya inay ka cabsan karaan oo ay dhigi kartid hebel haye arinta ma sameysay ayno taalaani adiga canugaas bis intaasnu ka cabsan karaa la rabaa ma aha adiga canugaaga inay idinka dhaxeeyaan ulle bis maalin waxaan xasuustaa guriyaan tagay odayga iyo ilmaha waxa ka dhaxayso sharci oo ah canugii dambi galo waa loo sheegaa waxa sida nin oo boqor oo kale amal waay waxa leeyahay nin hebel dambi galay waa loo waca waraa axmed oo adma dambi galay ha bax ushi lagu tumi lahay keenso dhaha ushi yaa loo kiina canugii waa garaaca gurigii dhan buu xunuq xiran military amal kii dambi gala waa la qoraa hebel aabaha yimaado khalad waa ma kamid ah tarbiyada carruurta marka nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilmaha waa in qalbigooda cabsi ay gashaa oo ah waalidka inay ka cabsan karaan ma ayna canuga waalidkiisa joogo wax walba inuu sameey karo nabi sallallahu alayhi wasallam ummadda wuxuu amray ul in guri la dhigto ushaas marka ma aha markii khalad ee galaam in lagu garaaco ushaas kaliya cabsi gelin inay ahaato kii rabsho sameeyo dhahaye usha waa taas aabba iska ilaaliya marka ilmaha garaacitaanka badan way ku cararaan way ku fiigaan iska ilaaliya waxa kale oo kamid ah garaacitaan waxa jira sharci ah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilmaha 7 sano markay gaaraan salaada ha lagu amro 10 sano hadii gaaraan ha lagu garaaco markaas wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam garaacitaanku wuxuu yiri 10 ul wixii ka badan khalad waayo dhahay maxaa yeelay 10 ul wixii ka badan wixii galaysaa xad waay ninka inuu dambi gala kaliya lagu garaaci karaa markaas wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam midkiina duu wax garaacayo wajiga iska ilaaliyo qofka aad garaacaysid wajigiisa waxba gaarsiinin waalidiin qaar ilmaha iska dharbaacayo meel xun ku dhufanayo khalad waa iska ilaaliyo walaalayaal ilmaha waa in la baraa wixii xun iyo wixii fiican nabi sallallahu alayhi wasallam xasan wuxuu arkay oo timir sadaqaha cunaya nabi sallallahu alayhi wasallam bani haashimna wuxuu yiri sadaqa ma cunaan laakiin hadiyo way cunaan markaas wuxuu arkay asagoo timir sadaqa cunaayo markaas uu si tartiib ah oo nidaamsan wuxuu yiri uf waayo iska dhig raashinkan annagu ama shacirta anna la naakulu sadaqa xasano adi ma ogid miya anaga sadaqada ma cunno marka walaalayaal waxa loo baahan yahay asaaliibtaasi aan uga faa'iideysano caruurteena insha Allah ta'ala